bilaabay dhageystayaal xisbiga haya talada jamhuuriyadda gooniistaageeda ku dhawaaqday ee Soomaaliland iyo kulmiye iyo labada mucaaradka ee u codiya wadani ayaa maanta ku kala kacay wadahadal ay ku gorfeynayeen sidii loo dhaqan galin lahaa taladii ay hore u soo jeediyeen gudidii dhexdhexaadinta ee khilaafka dhex yaallay xisbiyadu ay ka odeeyeen ee qodobada ay ka soo saareen xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay inay isku afgaran waayeen sidii arrinta loo dhaqan galin lahaa wariyaha BBC-da Sidiiq Maxamed Burmad ayaa haddaba shirkaas markii ay ku kala kaceen xisbiyada iyo madaxdooduba waxa uu heleelay oo uu waraysi la yeeshay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe oo uu weydiiyay bal hadda halka sartu ka quruntay maanta 13 shir ee maanta ma kaan sameynay waxna warramade waqtigii waa dhamaaday maxaa qabateen intii mudada usateen madaxweyne waxaan qabanay ma jirto arrinta way nagala balaaratay waxaan idin qarinaa inaan magaranaysaa gudidaasi aanay gudi qaban karta ahayn marka laga eego xagga tayada iyo xagga experience way aragnimada way daqaad go'aankana waan qaadanay laakiin sharci ma hayno sharci nasiya sharci ma hayno marka maxay ka dhigantay macnaheedu sharci ku kala jiro ma hayno daba waxaan marka caawiyo saan ku caawinayo loo tago reerahoodii waxaan aqli galin waxaan waxaad ma jirtay madaxweyne adiga haye arintii u yeero xataa isla wax kala farsamay sida hore loo sameeyo madaxweyne hore iga geysana magaano geesimay halkaas istaagay madaxweyne farooga taagay arintii go'aankii waan ogolay mana ogolay isku dhex jira way macnii ogolay afka laakiin ficlahan marka idinka waad ka timaadeen warbaahintan waad la hadasheen maxaa idinka idin xiga go'aan iyo talaabo waanu ku isku noqonaynaa insha Allah taala gudidiina waanu wargelinna laakiin anu Faysalaana iyo xusbaan waxa la arrintu tahay ka weyn tahay dalku badbaado u baahan yahay moosa laba sano oo hay'ad dalka waxa muuqata dalkii inuu soo ururiyo hareeraha ka soo ururiyo ee gudihiina ku furfumayo meesha wadanku qaawasa waxaan sharci ahayn idna aqbal ma isna qofka sharciga biis ku qaato maaha marka waxaan jeclahay insha Allah taala soo jeediyay marka wax isku yimaadaan odayaashana uu soo jeediyay marka soo yimaado in shir badbaado qaran la sameeyo aan ma doonayno inaanu after 20 areas ila tasacayno Soomaaliland burburto oo wax misqaala darada ku burburto oo qof awood ku burburto madaxweynaha ku burburto waxa jirta in mas'uul ka tirsan xisbigaagu ilaa imika uu xiran yahay ma ka wada hadasheen maxaa ka soconaya ee xal ah sidee baad soo aragtaa xariga siyaasiyiinta habeen hore ka wada hadalnay madaxweynaha oo yiri ninkan maxaad u haysataa inaan intaas la iskareeyay markaan shalay tahay war soo daamada ninkan wixii waa seedigay dhaaf ama arumaha seedigay soo dhaxgalbiyo waxaan door wax xoqayahaygii dibada wixii waxyaalahaas isku haysanay dhaaf seedigay marxaatiyaas la fadhiyo waxa jirtay warar sheegay in adiga laftigaaga dacwad laga gudbiyay inkastoo aan maqlay inaad ka wada hadasheen oo ka heshiiseen anuu madax imay soo gaar dacwadaas laakiin wax ka xun bay ugu sameeyay madaxweyne uu la dagaalamay 27 bisha aan qarinay dalka dantiisa aan ka ilaalinay malaw maqal xafiiskiisa kula dagaalamay hooyadina caay intii ugu soo toray dhalo hooyada waxa ku sameeyay wiili laadna kula soo orday laakiin waxa la yiraahdaa sheegin laga daba sheegin maxaad markaa keenay inaad isku dhacdaan ama gacan soo qaadaan arinta waxa isku keenay ninka laga yiraahdo ramax yani ramax waaran baa soo jaray wixii waa sharci waxa sharci ma hadda aynkaas noqoto dawladda inuu isdaafacnaa marka idinka waxa tihiin xisbiyadii mucaaridka ee la xisaabtami lahaa dawladda ee loo yarkan lahaa baa tihiin dhaliisha dawladda maaragtay ee indhaha ku hayn lahaa lagu xisaabtamayay inay bedelaan maxaa marka idinka idin meel yaala maxaa idin qorshaysan rasmiye la idinkaga talagali karaa waxa weeyaan madaxweyne ma ogolaan in la xisaabtamo in la taliyo in la shaqeeyo in la karisaas gareeyo wax laga sheego ma ogola madaxweyne xajiis waan istilo anaga ma doona dalkayga martaba dagaal soo ka dhaca maanta inaanu maanta danaan noqdo warlord uma diyaariyay marka talan isku noqon waa talan ay Soomaaliland bay tan taagan tahay